kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka Bisla TV. Qodobada warka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah dowladda dalka Mareykanka ayaa waxay gaadi dagaal ku wareejisay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maamul goboleedka Puntland wuxuu fariin u diray Somaliland isagoo ugu baaqay inay cadaalad hor keento askarigii ka dambeeyay dilkii habeennimadii xalay ahaa loo geystay Ibrahim Salaad oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Camud gaar ahaan kulliyadda engineering-ka isla markaana dhalashaan ka soo jeeda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland. sidoo kalena daawadayaal waxaan warbixin idinka haynaa xaaladii u dambeysay ee gobolka Tigray iyo guud ahaanba dalka Itoobiya. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan idin haynaa iyo kusoo dhawaada faahfaahinta qodobadaas iyo kuwa kale. taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa maanta waxa uu taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku wareejiyay gaadiid dagaal oo ka kooban noocyada kala duwan kadib munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawa Yuusuf Raag ayaa gawaadhidaasi kala wareegay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika, waxaana munaasabada sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan Africom iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Africom ayaa sheegtay in gawaadhida dagaalka ee lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya loogu talagalay ciidamada Commandos-ka Danab oo ay tababartay dowladda Mareykanka si ay u sii xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Generaal Odawa oo hadal ka jeediyay munaasabada gawaadhida lagula wareegay ayaa dowladda Mareykanka uga mahadceliyay gawaadhida ay ugu deeqday dowladda Soomaaliya. taliyaha ayaa saraakiisha Mareykanka ka socday u ballan qaaday in ciidamada Danab ay gawaadhidan isticmaali doonaan sidii loogu talagalay. dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dagaal adag kula jira kooxda Al-Shabaab. afhayeenka madaxtooyada maamul goboleedka Puntland Jaamac Dabarani ayaa ka hadlay dilkii Allah u naxariistay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal loogu geystay marxuum Ibrahim Cabdishakuur Salaad oo dhiganayay jaamacadda Camud balse deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Boosaaso. Jaamac Dabarani ayaa markii hore tacsi tiiraanyada u diray ehelka iyo qoyska uu ka baxay marxuumka oo ka mid ahaa ardayda wax ka barata kulliyadda engineering-ka jaamacadda Camud gaar ahaan faraceeda magaalada Boorama ee gobolka Awdal. sidoo kale afhayeenka ayaa ka dalbaday Somaliland inay cadaalad u hesho marxuumka si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado askarigii ka dambeeyay dilka ardaygaasi. Dabarani ayaa sidoo kale intaasi waxa uu ku daray inay xanuunka iyo murugada la qaybsanayaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Puntland. dilkan ayaa dhacay daqiiqada kadib markii Ibrahim iyo saaxiibadii ay ka soo baxeen imtixaan ay soo wada galeen, waxaana la sheegay inuu marxuumku dib ugu laabtay gudaha jaamacadda kadib markii uu doontay taleefanka gacanta uu halkaasi ku soo ilaabay. si kastaba Ibrahim Cabdishakuur oo 22 jir ah ayaa waxa uu dhiganayay sanadka labaad ee kulliyadda engineering-ka jaamacadda Camud qaybteeda magaalada Boorama, waxaana dilkiisa si weyn uga xumaaday guud ahaanba dadka Soomaaliyeed. ugu yaraan 4 ruux ayaa dhimatay kadib markii dagaal xoog leh oo u dhexeeya maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaanka Mandheere iyo Daymosame ee duleedka degmada Jowhar. iska horimaadkan oo ka dhashay muran ku saleysnaa lahaanshiya dhulbeereed ayaa soo jiitamayay bilihii lasoo dhaafay, iyadoo ay horey dagaalo labada dhinac dhex maray ay dad ku dhinteen. Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb iyo duqeyda dhaqanka degmada Jowhar ayaa baaq u diray labada beel ee ku dagaalamay deegaanka u dhexeeya Mandheere iyo Daymosame. waxaa jira weli cabsi laga qabo in mar kale uu dagaal ka dhex dhaco labada beelood, iyadoo ay deegaanada labada beel ay biyo ka fatahay webiga Shabeelle ku hareeraysan yihiin. Al-Shabaab ayaa lasoo sheegayaa inay dib ula wareegtay gacan ku haynta magaalada Bacaadweyn ee gobolka Mudug saacado kadib markii ay saaka halkaasi qabsadeen ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug. wararka ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay galabta weerar rogaal celis ah ku soo qaadeen deegaanka Bacaadweyn. dagaal culus oo labada dhinac dhex maray ilaa iyo caawa maqribkii soo gaaray ayaa sababay in ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug ay dib uga soo baxaan deegaanadii ay saaka qabsadeen oo ay ku jirto Bacaadweyn. dagaalo saacado badan qaatay kadib ayay ciidamada
wilaayada islaamiga ah uu suurto gashay inay dib ula wareegaan gacan ku haynta degmada Bacaadweyn ayaa lagu yiri war ay soo saartay Al-Shabaab oo lagu baahiyay baraha kooxdaasi ku leedahay internetka. Al-Shabaab ayaa sidoo kale guulo ka sheegatay dagaalo kale oo ay sheegeen inay isla galabta ka dhaceen duleedka deegaanka Wisil ee gobolka Mudug, iyaga oo xusay inay qabsadeen tuulada Qaycad ayna ciidamada Galmudug ka gubeen gaadiid dagaal. Weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka Bacaadweyn iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Mudug. wararka laga helayo dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in xogaga Tigreegu ay ku sii ruqaansanayaan dhanka iyo deegaanka Axmaarada. jariirada afka dheer ee The Guardian ayaa warbixinay daabacday waxay ku sheegtay in xogaga Tigreega ee la baxay TPLF isla markaana dowladda Itoobiya argagixisada u aqoonsatay usoo ruqaansadeen dhanka deegaanka Axmaarada. deegaanka Axmaarada ayaa dhankiisa laga dareemaya diyaargarow ballaadhan, waxaana socda dadaalo lagu ururinayo dhalinyaro ka mid noqota ciidanka gaarka ah ee deegaankaasi iyo maleeshiyaadka deegaankaasi Axmaarada. madaxweynaha dowlad deegaanka Axmaarada oo maanta hadla ayaa sheegay inay diyaar u yihiin fashilinta weerar kasta oo ka iman kara fallaagada TPLF. beesha caalamka ayaa ka walaacsan arrinta ka taagan galbeedka Itoobiya, waxaana xusid mudan in haddii aan xal degdeg ah loo helin ay noqon doonto colaadani mid dhiig badan ku daato. dhanka kale ilaa hadda ma cadda doorka uu militariga Itoobiya ku yeelan doono colaadda labada deegaan oo dhab ahaantii u muuqata mid qowmiyadeed. golaha midowda musharaxiinta Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda iyo wararka la xiriira dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka ciidan loogu diray gudaha dalka Eritrea. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in lasoo sheegay in ciidamadaas ay qayb ka ahaayeen dagaaladii sokeeye ee Itoobiya ka dhacayay gaar ahaan gobolka Tigray. wararka la xiriira joogitaanka dhalinyaradaas ee Itoobiya iyo ka qaybgalkooda dagaalada sokeeye waxaa xaqiijiyay hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyo madax ka tirsan dowlado caalami ah oo u kuurgalay dagaaladaas ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. waxay sidoo kale goluhu ku eedeeyeen madaxweyne Farmaajo inaanu dhageysan dacwado ay soo jeediyeen waalidiinta dhalinyaradaas oo ka codsaday dowladda inay ka hadasho xaaladda dhalinyaradaasi. waxaa nasiib darro ah in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday oo ah mas-uulka u sarreeya ee ciidamada qalabka sida inuu dhagaha ka furaystay oo uu diiday inuu si muuqata uu shacabka Soomaaliyeed uga jaahil bixiyo eedeymahaas ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. waxaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsanaynaa in dhacdadan ay tahay mid aan la iska indhatiri karin oo ay mas-uuliyaddeeda dusha ka saaran tahay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. golaha midowda musharaxiinta ayaa ugu dambeyn sheegay inay ugu baaqayaan madaxweyne Farmaajo inuu iska casilo xilka ummadda Soomaaliyeed u hayo, isla mar ahaantaana uu ka tanaasulo hankiisa musharaxnimo ee mar kale uu tartamayo inuu hanto talada waddanka, iyagoo sheegay inuu ku fashilmay habkiisa hogaamineed tan iyo sanadkii 2017 oo majaraha xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya uu la wareegay. baarlamaanka Israa'iil ayaa diiday inuu cusboonaysiiyo sharci ku meel gaar ah oo markii ugu horeysay la meel mariyay sanadkii 2003 kaasi oo ka hor istaagayay xaasaska muwaadiniinta carabta ee Israa'iil ee ka soo jeeda dhulka la haysto ee daanta galbeed iyo marinka Gaza inay helaan deganaanshaha ama dhalashada dalka Israa'iil. codaynta baarlamaanka oo la qabtay maanta oo Salaasa ayaa ku dhamaatay 59 cod oo labada dhinac ah, waxayna ka dhigan tahay in sharcigu uu ku dhamaanayo saacado gudahood sida uu sharcigan qabo. muwaadiniinta carabta oo lagu qiyaaso 5 meelood meel shacabka Israa'iil ayaa waxay haysteen fursado kooban oo ay xaasaskooda kaga keeni kareen daanta galbeed iyo marinka Gaza. dadka dhaleeceeya sharcigan oo ay ku jiraan sharci dejiyayaal badan oo ah garabka bidix iyo kuwa carabta ayaa ku qeexay inuu yahay tallaabo cunsurnimo ah oo lagu xadidayo koritaanka carabta Israa'iil ee laga tirada badan yahay. laakiin siyaasiyiinta taageersan ayaa sheegaya in sharcigan loogu baahan yahay amniga Israa'iil awgii iyo in la ilaaliyo in Israa'iil ay ahaato dal Yuhuuddu leedahay. qodobkaas wuxuu ku gabagaba iyo gunaanadba u ahaa war wixii naga soo gaadhay daafaha caalamka iyo geega Soomaalidu degto
oo xilligan si toos ah uga daawanayseen Bisla TV. Intaan ku kulmi doono warka xiga waxaad ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.